abaaro baahsan oo ku dhuftay deegaano badan oo ka mid ah Somaliland ayaa abaaro baahsan oo ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolkani Gabiley ayaa waxa qaar ka mid ah deegaano hoos yimaada gobolkani Gabiley isla maanta gurmad degdeg ah la gaaray maamulka dawladda hoose uu hogaamiyo maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmadaasi Gabiley deegaanadani ay gurmadka la gaareen oo ah deegaanada waqooyiga gobolkani Gabiley oo halkaasi ay dadkii iyo xoolihii u hayaamay ay la ildaran yihiin gaajo iyo biyo la'aan oo ay u beertahay abaaro baahsan oo soo ritay dadkani mas'uuliyiintani iyo dadkii ay gurmadka la gaareen ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa ka dhacday gobolka xoolahan aad arkaysan waa xoolaha waxa weeye dadka halkan socdo oo duriya Maxamed Cali Arabsiyo Ramad Laaca Ijaara ilaa area-daas oo dhan ay dadku ka keeneen markay u dhawaayeen deegaamadoodii waxay cunaan iyagoo markaa u keenay ama soo raacay raadka xayskii ka daayay waqooyiga markay keeneen waxay kula kulmeen waxaanay runtii filayn geed cala oo aanay hore u aqoonin loodu oo aan hore looga baran dabadeeto waxay kaliftay inay isku dayaan inay ku noqdaan deegaamadoodii gaajo darteed ay runtii loodii la celin kari waayey loodii waxay iskugu jirtaa waxay ka yimaadeen oo socon kari waayey dar ilaahay uga yimaadeen wax dhintay iyo waxa aad arkaysaan iminka itaalkeeda oo runtii la habeen dhixinayo waxaanu isku daynay inaanu caleen u soo qaadno wixii aanu heli karno oo baadiyo biyaba iskugu jira iyo sahay aanu ugu talagalnay dadka xoolaha iyagoo laftooda ku dulgaajoonaya runtii dee waad arkaysaan waxa weeye xoolaha tirada intaa leeg iyo tiro kale oo aanu ku soconno iyo tirana dhaaftay waxa weeye kolka hore horta dadkan waa beer qodod ninku beer qodota markuu yahayna waxa loo baahan yahay wuxuu dhulka ka soo saaray gugii ayuu jiilaalka cunaa u kaydsado sanadka laga bilaabo markii beerta qodaalkeeda aanu bilownay wixii raxmaddu way naga martay waanu daalantoolo ogaadeen yaanu galnay waanu ka soo laabnay wixii yaraa kacaakufa ayaanu ku soo noqonay wixii yaraa muddo bila ayaa gacanta soo marisay kabacdi gaajo ayaa halkiisa soo taagtay dee baasho waad garanaysa degmooyinkii aanu ka nimid waxaanu ka nimid horta gaajo waxaanu u soo dalantoolay waxaanu ka nimid midi waa durya waa lafta rambard laydhaha waa qori jabka oo dabardulele ku magac dheer Maxamed Cali laaye qayb arabsiya ku jirta dawladda noo soo gurmatay abaaraha u soo gurmatay xoolaha u soo gurmatay beesha u soo gurmatay ilaa midhid iyo ilaa halkaa ilaa Gabiley ilaa Boocda socda kolkii hore maxay dawladda Soomaaliland horta u ogaan weyday waa qodob marka ku xigta inay abaara jiraan oo ilaa badda iyo ilaa bariga ilaa galbeed ilaa bari inay abaartu jirto dawladda Soomaaliland horta maxay u ogaan weyday marka u horeysa waa qodob waxa weeyaan looda halkaa ka soo dhaadhacday ilaa galbeed iyo looda halkaa ka soo baxday ilaa oogo ilaa meel walba ka yimid habqankooda kolkii hore iyagoo abaara socday maxay dawladdu u ogaan weyday horta Soomaaliland abaartii halkii la gaadhay ilaa lugaya deel buto dhamaan soo maray oo ilaa lugaya ilaa meel kasta abaartii waxa ka soo kicitay loodii mise ka fariistay loodii dhowr bal ma soo dhaaf waxaan u hoyday jiray iyo caada dhexdooda ayeeshee beer yaro bustaana iyo meel u dhaxaysa ayaan dibigii ku xareeyay dibigii markaan xareeyeen ooday waan maxay ahayd xareeyar baan ooday halkii baan fanaanada isku duudubo iska seexday aruurnimadii baan ka soo kalahay reer baan ka soo qureecday maanta aanu dhaxda soo socdaa ayaan gurmad helay lacag sare leeyahay kolka de abaar waa waxa aad arkaysaan ba ummadda hayso laba sanadood oo roobgumudi
sanadkii saddexaad baa roob noogu dambeysay kolkii hore waa la caafimaad qabay laakiin xanuuno wuu ugu darmay geel iyo adhi iyo loo waxay jooga waa maxamed xasan sheekh maxamed Juba Har Wanaag News Gabiley